waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay dil toogasho ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan raacfaan wabillahi tawfiiq maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa ku riday xukun dil ah 20kii Maaj ee sanadkan Canshuur Cusmaan Abuukar iyo Maxamed Cali Boorow Aadan kuwaas oo ku eedeysnaa qaraxyo iyo dilal ka dhacay Muqdisho wixii ka horeeyay 22kii Diseembar sanadkii tagay oo ay sidoo kale ka dambeeyeen qaraxyadii daqiiqadaha u dhaxeeyay ee ka kala dhacay tiyaatarka iyo daljirka markaas oo eedeysanayaasha ciidamada amniga gacanta ku soo dhigeen iyagoo kaalmo ka helay shacabka caasimadda qarinada eedeysanayaasha ayaa u arkay inaysan ku qancin xukunka maxkamadda darajada koowaad oo sida sharciga ah ka furan yahay had iyo jeer rafcaan waxaana xilligaasi ay soo qaateen rafcaan oo ay aqbashay maxkamadda sare dhowr iyo 40 cisho kadib maanta ayaa mar kale laga furay gal dacwadeed ka dhan ah labada eedeysane maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida xukunkii maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida ay soo saartay ayaa lagu qanci waayay sidaas darteeda ayaa waxaa la soo qaatay rafcaan ayaa la soo qaatay ama abiil wax loo yaqaan ayaa la soo qaatay maanta ayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala noo suurtageliyay in abiilkii aan u fariisano gunta hoose ee dacwadda ayaa mar kale laga soo bilaabay kiiskan waxaa maxkamadda la hor keenay 4 marqaati oo mid kasta ah oo kamid loo dhaariyay inuusan ka been sheegin kiiskan baarihii kiiska uga wakiilka ahaa hay'adaha amniga jeedinta qiraalka eedeysanayaasha waxaa sidoo kale jiray fursado la siiyay eedeysanayaasha oo iyaga laftooda maxkamadda wax ka weydiisay qiraalkooda arinta cajiibka ah ee eedeysanayaasha midkood ku dooda waxaa kamid ah in la jirdilay si uu u qiro dambiye uusan gelin laakiin waxaa maxkamadda horteeda loo ogolaaday qareenada inay fiiriyaan si daahfuran dhammaan jirkiisa si cad ay fadhiga maxkamadda uga hor sheegeen inaysan jirin wax dhaawac ah xabiiska xeelaaninta oo ku qanacsanaa xukunkii maxkamadda darajada koowaad ayaa mar kale iftiimiyay ficilada ay geysteen eedeysanayaasha inay ahayd kaliya ujeedada inay la dagaalamaan nolosha bini'aadamka marba haddii aysan dhowrin goobaha xurmada leh sida dugsiyada iyo masaajidada oo kamid ah goobaha ku xusan eedooda oo ay waxyeeleeyeen mudana gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh waxaan cadaynay si buuxda maxkamadda ugu hor cadaynay inay 221 galeen waxaan maxkamadda si buuxda ugu hor cadaynay inay 222 galeen waxaan maxkamadda si buuxda ugu hor cadaynay inay 434 galeen si wada jirana ay u galeenaysan ku kala harsanay sidaas awgeed mudana gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh sharciga idinka ka mas'uula maanta waxaan si buuxda u cadaynaynaa labada eedeysan inaysan xaq u lahayn inay noolaadaan inta dadii dilay marka la fiiriyo yaani caruurta iyo dadka masaakiinta iyo haweenka bilaa taargad inta loo soo bax loo laay xeerlaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa weydiistay maxkamadda inay mariyaan qodobada sharciga ah ee lagu soo eedeeyay eedeysanayaasha waxa ay ku kaceen wax akhlaaqda insaan damiir leh wax uu ku kici kara ma waxa ay ku kaceen nimankan maxkamadda sharafka leh waxaan si xushmad leh uga codsanaynaa in ciqaabta ay qoraan aayadaha axaadiista iyo qodobada aan ku soo eedeynay lagu xukumo wabillahi tawfiiq qareenada eedeysanayaasha ayaa kaliya dulucda doodooda ku soo koobay inaan loo qaadan karin xukun ciqaabeed ka badan 10 sanadood qiraal iyo markaati sidaas darteed ayay codsadeen in la siiyo xorriyadooda labada eedeysane xukunka ka soo baxay maxkamadda darajada koowaad ee lambarkiisu yahay 41/2019 kuna taariikhaysan 20 bishii 3aad 2019 la jabsho labo in muwaadiniinta Soomaaliyeed ee u dhibban eed aysan lahayn marag aan sax ahayn lagu furay qiraal aysan mudnayn la dul saaray la siiyo xorriyadooda iyo yirma waafaqsanay 68 in asaga qiraalkiisii loo raaco oo asaga qiraalkiisii darteed loogu eedeeyo 221 iyo 222 maxaa sharcigu ka qabaa sharcigu wuxuu ka qabaa sida ku qoran 108 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed faqradda ba oo macnaheedu yahay in aysan suuragal ahayn in qof lagula xukumo dil iyo xabsi daa'in in asagu sheegtay oo kaliya dhimashada 72 qof iyo dhaawaca 156 qof oo kale ayaa loo haystaa labada eedeysan inta la xaqiijiyay ee galay diiwaanada xarumaha caafimaadka waxaa sidoo kale jira burbur hantiyadeed oo tiro dhaafay
ugu dambeyn fadhiga maxkamadda oo qaatay maalin haafkeed waxaa soo xiray gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida General Liban Cali Yarow. kiiska sidaas ayuu ku gabagabaysan yahay xukunkana dib ayaan ku soo sheegi doonaa wabillahi tawfiiq. Cabduqaadir Ciise, warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.